qarni laga soo gudbay. Waxaa halkaas ka jira boqor gaal ah. Waxa uu dadkiisa amray in la caabudo asnaamta. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa magaalada soo booqday wiil dhalinyaro ah oo aaminsan kali ahaanshiyaha Allah. Waxa uu ogaaday fitnada ka jirta magaalada. Waxa uu baray tawxiidka. Waxa uuna dadka ugu yeeray iimaanka. Waxa ay rumeeyeen Allah. Dadkaas Alla aaminay waxaa warkooda maqlay boqorka. Waxaana loo sheegay in dadkaas ay ka tageen diintiisa. Waxa ayna waxaan jirin ka soo qaadeen asnaamta. Kooxdii Alla rumaysneed waxaa fadhigiisa loogu keenay boqorkii. Waxa uu ku amray inay ka tagaan diintooda. Waxa uu ku handaday dil haddii aysan ka tagin diintooda. Waxa uu siiyay fursad ka hor inta uusan fulinin handadaadiisa. Kooxdii waxa ay ka shireen in ay diintooda ka tagaan iyo in kale. Waxa uu go'aankooda ku soo arooray in ay galaan god ay yaqaaniin. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Waxa ay u baxsadeen xaggii godka. Waxaana raacay ay u lahaa mid iyaga ka mid ahi. Kooxdii waxa ay niyadooda ku xireen Allah. Waxayna aaminsanaayeen in Alle uu ka ilaali doono wax walba oo dhib ah ilaa ay ka soo gaareen godkii. Daqiiqado kama soo wareeganin ilaa ay wada seexdeen dhulka hurdo aad u dheer, ayagoo aan indhahooda marna isku xirin. Waxaa soo galay habeen. Waxa uuna soo dhaweeyay maalin. Waxaa dhammaaday sanad. Waxaana bilaabmay sanad cusub. Weli kooxdu waxa ay ahaayeen kuwa hurdaya. Qoraxdu waa ay soo bixi jirtay. Kulaylka qoraxdana ma aysan gaari jirin. Haddii ay qoraxdu soo baxdo, waxa ay ka soo bixi jirtay midigta godkooda. Marka ay dhacaysana, waxa ay u dhici jirtay bidixdooda. Qoraxduna dhib uma aysan geysan jirin bilowga maalinta iyo dhammaadkeedaba. Mana aysan sii jirin ilaa shucaac yar mooye. Ayaguna waxay ahaayeen kuwo isku gediya bidix iyo midig si jirkooda uusan dhulka u cunin. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Waxaa ka soo wareegatay 309 sano hurdadoodii. Alle waxa uu ka soo kiciyay hurdadii ayagoo baahi aad u daran ay hayso. Dhexdooda waxa ay isweydiiyeen imise ayaa ka soo wareegatay. Mid ka mid ah ayaga ayaa waxa uu dhahay maalin ama maalin badhkeed. Mid kale ayaa waxa uu dhahay Alle ayaa og inta ka soo wareegatay. Waxa ay dhaheen aan dirsanno midkeen si oo inoogu keeno cunto aan cunno. Hana noqdo midka inoogu taxadarka iyo caqliga badan. Waxaa magaalka soo galay mid ka mid ah saaxiibadii godka si uu ugu soo iibiyo cunto. Waxa uu aad ula yaabay sida ay isku beddeshay magaalada iyo dhismaheeda. Waxa uu u imaaday nin cunto iibinaya. Markii lacagtiisa uu soo bixiyay ee uu siiyay ninkii ganacsadaha ahaa, waxa uu aad ula yaabay sida ay u taalo lacagta. Waxaaba ku sawiran sawirkii boqorkii gaalka ahaa ee geeriyooday wax ka badan 300 sano ka hor. Dadkii magaalada oo idil ayaa ku soo xoomay. Waxaa loo kaxeeyay boqorkii muuminka ahaa ee haystay magaalada, kaas oo qisada ninkan ka sii maqlay
awoowayaashiisa. Waxa uu weydiiyey arrintiisa, waxa uuna uga sheekeeyey arrinta ku dhacday asiga iyo asxaabtiisa. Boqorkii waa uu ku farxay arrintaas. Asiga iyo dadkii ku noolaa magaalada waxa ay wiilkii u raaceen xaggii godka. Markii ay godka soo gaareen, wiilkii ayaa waxa uu ku dhahay, aniga ayaa u galaya si aysan u nixin. Waa uu u soo galay, waxa uuna u sheegay arrinta jirta. Niyadda ayuu u qaboojiyey, waxa uuna u sheegay in boqorkii gaalka ahaa uu geeriyooday, boqorka hadda haystana uu yahay boqor muumin ah oo wanaagsan. Waa ay ku farxeen arrintaas, waa ay soo baxeen, waxa ayna salaameen boqorkii, asagana waa uu salaamay. Kadib waxa ay ku noqdeen godkoodii. Kooxdii Alle ayaa oofsaday. Dadkii degganaa tuulada waxa ay isku khilaafeen waxa laga dhigayo godka. Koox ka mid ah waxa ay soo jeediyeen in laga dhiso guryo, halka kooxda labaad ay soo jeediyeen in laga dhiso masaajido. Waxaa guuleystay kooxdii labaad. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Sanado kadib dhimashadii Nabi Muuse, reer bani Israa'iil waxa ay diideen shareecadiisa. Waxaa batay dhibkooda, dhexdoodana waxaa hareeyay dagaalo fara badan. Waa ay kala dideen, xaaladdoodiina waa ay xumaatay. Kadib xaaladaas adag oo ay ku jireen sanado badan, Nebi Daa'uud calayhi salaam ayaa waxa uu reer bani Israa'iil u noqday boqor. Allana waxa uu gacanta ka saaray boqornimada iyo nebinimada. Nebi Daa'uud calayhi salaam waxa uu ahaa addoon Alle daacad u ah. Waxa uu ahaa addoon mahadcelin badan oo maalinna sooma, maalinna afura. Habeenkii kala badh waa uu taagnaa, inta soo hartayna waxa uu ahaa mid seexda. Alle waxa uu ku soo dejiyey kitaabka Zabuur, waxauna Alle siiyey xikmad, cilmi iyo cod macaan. Subaxdii markii uu soo kaco, waxaa la soo kici jiray buuraha iyo shimbiraha. Waxa uuna ahaa mid kitaabka Zabuur ku akhriya 70 cod. Mid ka mid ah ragcadaha uu habeenkii tukado waxa uu ahaa mid aad u ilmeeya, waxaana la oran jiray wax walba oo maqla codkiisa, qofkii faraxsan iyo kii murugsanba. Alle waxa uu u fududeeyey birta, waxa ayna birta ugu jilicsaneyd sida dadka ugu jilicsan tahay dhoobada iyo shumaca. Birtana waxa uu ka samayn jiray dharka. Nebi Daa'uud calayhi salaam waxa uu ahaa mid ku adag boqornimadiisa, waxa ayna dadka cadowgiisa ah ka baqan jireen iyadoo aan la gaarin dagaal. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Mar walbana Alle waxa uu ka dhigi jiray mid ka guuleysta cadowgiisa. Inkasta oo uu Alle jeclaa uuna u dhowaa, waxa uu ahaa mid markasta Alle wax ka barta. Alle ayaa maalin waxa uu baray haddii uu kala xukminayo laba koox oo is haysa, inuusan go'aan qaadanin ilaa in uu labada koox dhageysto mooye. Maalin ayuu wuxuu soo galay meeshii uu ku tukan jiray oo uu Alle ku caabudi jiray.
Mar walba oo uu galayo qolkiisa, waxa uu ilaaladiisa ku amri jiray inaan la dhibin inta uu tukanayo. Maalin ayuu wuxuu soo galay meeshii uu Alle ku caabudayay, waxaana ugu soo horeysay 2 nin oo awood leh. Waa uu ka baqday, waxa uuna dhahay, "Yaa tihiin?" Waxaa hadlay mid ka mid ah, waxa uuna dhahay, "Aniga iyo ninkan waxaa naga dhexeeya dagaal. Waxaan rabnaa inaad si cadaalad ah inoo kala xukmiso." Nabi Daa'uud calayhi salaam ayaa ninkii waxa uu weydiiyey, "Waa maxay arrinta aad isku haysaan?" Ninkii ayaa waxa uu dhahay, "Ninkan waa walaalkay, waxa uu leeyahay 99 wan, anigana waxaan leeyahay 1 wan. Waxa uu iga qaatay wankayga, waxa uuna ku darsaday wanankiisa." Nabi Daa'uud calayhi salaam asagoo aan dhageysanin darafka kale ayaa waxa uu dhahay, "Waa uu ku dulmiyay haddii uu ka qaatay wankaaga oo uu ku darsaday wanankiisa." Dad badan oo wax iskugu darsan yihiin waa ay dulmiyaan qaarkood qaarka kale, ilaa wax yar oo Alle rumeeyay mooye. Nabi Daa'uud markii uu intaas dhahay, waxa uu hortiisa ka waayay 2 nin, sida daruur hawada kala raacday oo kale. Nabi Daa'uud calayhi salaam waxa uu dareemay in 2 nin ay ahaayeen 2 malag oo ka timi xagga Alle, oo baraysay cashar in uusan labada dhinac kala xukminin ilaa inuu labadood dhageysto mooye. Waxaa laga yaabaa in ninka 99-ka iska leh uu xaq leeyahay. Sidaa darteed, Nabi Daa'uud waxa uu u sujuuday Alle, dambi dhaaf ayuuna weydiistay. Nabi Daa'uud calayhi salaam waxa uu geeriyooday asagoo da'diisu ay tahay 100 sano, waxaana janaasadiisa ka qayb galay 10,000 oo dad ah. Dadkuna waxa ay is dhaheen, ma jiro qof dhintay kadib Muuse iyo Haaruun oo loo murgay sidii loogu murgay Nabi Daa'uud calayhi salaam. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Xilli hore waxaa jiray boqor daalim ah oo la dhihi jiray Namruud bin Kancaan. Waxa uu awooday in uu maamulo adduunka qorax ka soo bixiisa iyo qorax u dhiciisaba. Alle waxa uu siiyay khayr iyo nimcooyin aan la tiri karin oo la xisaabin karin. Intii uu ku shukri lahaa Alle waa uu ku gaaloobay, waxa uuna u maleeyay in Allihii asaga abuuray uu ka weyn yahay kana awood badan yahay. Awoodda uu isbaday aawadeed, markii uu joogay dhulka Ciraaq waxa uu dadka ku ciqaabi jiray bir iyo dab. Asaga waxa uu ahaa markiisii hore mid caabuda asnaamta. Waxaa ka soo wareegatay sanado badan. Waxa uu sheegtay ilaahnimo, waxa uuna dadka amray inay asaga caabudaan. Xilligaas waxaa dhashay Nabi Ibraahim calayhi salaam.
waxa uu ka dhashay qoys markaas caabudayay asnaamta. Aabihiisna waxa uu ahaa mid gacantiisa ku sameeya sanamyada. Laakiin Ibraahim markii uu yaraa, waxaa qalbigiisa ka buuxsamay nacayb uu u qabo waxyaabahan. Aan waxba cuninin, waxna cabeynin, hadlaynin, oo aan dhib iyo dheef midna lagu haynin. Carruurnimadiisa waxa uu ogaaday Alle in uu yahay midka qura ee wax abuuray. Sidaa darteed, waxa uu aabihiis ugu yeeray inuu caabudo Alle oo uu ka tago caabuditaanka asnaamta. Laakiin aabihiis waa uu diiday, waxa uuna ka eryay gurigiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, xilli qoomkiisa ay xaflad ku qabsanayeen meel ka baxsan magaalka, Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu soo galay meeshii ay wax ku caabudayeen. Waxa uuna gacanta ku watay faas aad u afeysan. Waxa uuna jajabiyay dhammaan asnaamtii ilaa kii weynaa mooye. Faaskiina waxa uu qoorta u suray asnaamtii kii ugu weynaa. Markii qoomkiisa ay ka soo noqdeen xafladdii, waxay arkeen asnaamtii oo burbursan. Waxa ay Nebi Ibraahim calayhi salaam weydiiyeen cidda burburisay asnaamtooda. Waxa uu ugu jawaabay, asaga waa kan ugu weyn ee weydiiya. Waxa ay u kaxeeyeen Namruud, kaas oo sheegtay ilaahnimo. Namruud waxa uu weydiiyey Nebi Ibraahim calayhi salaam, waa kee rabbigaaga? Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ugu jawaabay, rabbigayga waa kan wax dila ee wax nooleeya. Namruud waa uu u jawaabay asagoo isla weyn, waxa uuna dhahay, aniga xataa wax waan dilaa waana nooleeyaa. Si uu u caddeeyo arrintaas, waxa uu xukumay 2 nin. Mid ka mid ah waa uu dilay, kan kalena waa uu cafiyay. Si uu ugu caddeeyo Nebi Ibraahim in uu yahay qof wax dila waxna nooleeya. Nebi Ibraahim calayhi salaam kalama uusan hadlin Namruud fahanka qaldan ee uu ka haysto wax nooleynta iyo wax dilidda. Waxa uu u gudbay aayad kale oo ka mid ah aayadaha Alle. Waxa uuna dhahay, Alle waxa uu qoraxda ka soo bixiyaa qorax ka soo baxa, adiga ka soo bixi qorax u dhaca. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Haddii aad sheegatay inaad awooddo in aad wax disho waxna nooleyso, ma awooddaa in aad beddesho qaab nololeedka koonka? Ma ka keeni kartaa qoraxda bari beddelkeed galbeed? Markii halkaa la marayay, Namruud waa uu aamusay, waxaana ku xirmay hadalka. Markii uu ka jawaabi waayay xujada la soo hordhigay, waxa uu amray in la huriyo dab badan. Waxa uuna ku riday Nebi Ibraahim calayhi salaam. Alle awooddiisa ayaa waxa ay ka dhigtay dabkii mid qabow, wax dhib ahna maysan u geysanin Sayyidina Ibraahim calayhi salaam. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mar kale ayuu Nebi Ibraahim calayhi salaam ugu wacay Namruud inuu Alle aamino, laakiin waa uu iskibriyey, waa uuna caasiyey Alle, waa uuna ku gaaloobay. Allihii ceebta ka nasahnaa ayaa waxa uu Namruud u soo diray kanaaco yar, taas oo ka gashay sankiisa, taas oo dhibtay, xanuun daranna ku sababtay. Kaneecadu ma aysan joojinaynin inay ku dhex wareegto gudaha madaxiisa, ilaa heer uu gaaray gaalkaasi inuu madaxiisa ku garaaco kab si xanuunka uga yaraado. Alle waa uu ka aarsaday, waa uuna ciqaabay
ilaa uu u dhintay arrintaa aawadeed. Nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu sii watay inuu dadka ugu yeero in Alle keligii la caabudo. Ma aysan jirin cid rumaysay Ibraahim marka laga reebo haweeney la oran jiray Saara oo markii dambe noqotay xaaskiisa, iyo nin la oran jiray Luut kaas oo gadaal ka noqday nebi dadka ugu yeera inay Alle caabudaan. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Alle ayaa waxa uu u sheegay malaa'igtiisa in uu abuuri doono Aadam iyo in uu ka dhigi doono rusul, ambiyo iyo dad wanaagsan. Malaa'igtu waxa ay horay u ogaayeen in bini'aadamka hortiis la abuuray jinni kaas oo fasaadiyay dhulka. Alle ayay waxay weydiiyeen su'aal ay ku ogaanayaan xikmadda ka dambeysa in la abuuro bini'aadamka. Waxa ayna dhaheen, yaa Rabbi, maxay tahay xikmadda ka dambeysa inaad abuurto kuwan oo uu ka mid yahay mid dhulka fasahaadinaya, dhiigna ku daadinaya? Haddii muraadkaagu uu yahay in lagu caabudo, annaga ayaa ku tasbiixsanayno, kugu mahadcelinayno, kuna weyneynayno. Alle weyne waxa uu yidhi, waxaan ogahay waxa aynu idinka ogeyn. Kadib Eebbaweynihi sareeyay waxa uu abuuray Aadam, waxa uuna ku sameeyay gacantiisa, ruuxda ayuu ku afuufay, waxa uuna noqday bini'aadam ka kooban hilib iyo dhiig. Waxa uuna baray dhammaan magacyada, nimcada caqliga ee uu Alle siiyay Aadam si uu u istaahilo inuu Alle khaliif ugu noqdo dhulka, taasi oo ah weyneyn midii ugu sareysay. Intaas kadib Alle waxa uu amray malaa'igta inay u sujuudaan Aadam, sharaf uu sharfayo Aadam. Dhammaantood way u sujuudeen, laakiin Ibliis oo ka mid ahaa jinka oo ku dhex noolaa malaa'igta waa uu diiday in uu u sujuudo Aadam. Waxa uuna iska weyneeyay Allihii weynaa ee keliga ahaa. Alle waxa uu ka soo saaray raxmadiisa, waxa uuna ka dhigay mid la buriyay oo la nacladay. Ibliis waxa ku dhashay nacayb aad u daran oo uu u qaaday Aadam iyo waxa uu dhali doono. Waxa uuna ku dhaartay Alle in uu u qurxin doono wax walba oo xun si ay ugu dhacaan Aadam iyo waxa uu dhalay. Kadib Alle waxa uu feerta Aadam ka abuuray Xawaa, waxa uuna u oggolaaday in ay ku raaxaystaan dhammaan waxa ku sugnaaday jannada ilaa hal geed mooye. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ibliis waxa uu xiqdi iyo xaasidnimo iskugu keenay laabtiisa si uu u shaki geliyo Aadam si uu u cuno geedkaas. Aadam ayaa naftiisa waxa uu isweydiiyey, maxaa dhici doona haddii aan cuno geedkan? Aadam iyo Xaawaba waxay ilaaween in Ibliis uu yahay cadowgoodii hore. Waxay kaloo ilaaween in Alle uu uga digay inay marnaba u dhowaadaan geedkaas. Aadam ayaa gacantiisa waxa uu u qaaday xaggii iyo geedka, waxa uuna soo jaray mid ka mid ah mirihii geedka, waxa uuna u dhiibay Xaawa. Labadaba waxay cuneen mirihii uu Alle ka xarimay. Markii ay geedka cuneen kadib, waxa ay noqdeen kuwo qaawan. Waxa ay soo jareen caleemihii geedka, waxayna ku astureen jirkooda. Alle waxa uu la hadlay Aadam iyo Xaawo, waa uuna eedeeyay.
waxa uuna ku dhahay, miyaan idinka fogeynin geedkan oo aan idin dhihin, Shayddaanku waxa uu idinku yahay cadow weyn. Alle waxa uu ka soo bixiyay Aadam iyo xaaskiisa Xawaa jannada. Waxa ayna ku soo dhaceen dhulka, waxa ayna ka shalayeen shalay daran caasinimada ay Alle caasiyeen. Waxa ayna ogaadeen in Ibliis uu yahay cadowgooda runta ah. Aadam iyo Xawaa waxay u jeesteen Alle xaggiis si ay ugu toobad keenaan. Alle waa uu ka aqbalay toobadooda, waxaana u bilaabatay waddadii nolosha ee dhulka. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Nabi Aadam calayhi salaam waxaa dhulka ugu dhashay carruur fara badan. Waa uu tarbiyeeyay, waxa uuna u sheegay in nolosha dhulka ay tahay imtixaan loogu talagalay bini'aadamka, iyo in ay waajib ku tahay in ay haystaan hanuunka Alle. Sidoo kale waxa uu u sheegay inay iska jiraan inay Alle u shariig yeelaan iyo in ay caasiyaan ama Shayddaan adeecaan. Nabi Aadam calayhi salaam waxa uu aaday xaggii Alle markii uu keenay risaaladii Alle ka socotay. Carruurtiisa waxa uu uga tagay dhulka si ay u camiraan, ubadna ugu sii dhalaan. Intii lagu guda jiray xilli jaamacadeedkii ayaa Salma waxaa u soo dhowaaday qalin-jabinteedii kulliyadda eedaabta. Waxa ay si khudbasiro ahaan u guursatay wiilkaas oo ay ahaayeen saaxiibo isku dhow, waxa uuna 1 sano kaga soo horeeyay jaamacadda. Wiilkan ma uusan ahayn mid awooday inuu gabadha guri geysto. Markii ay muddo 2 sano ah ku wada joogeen si qarsoodi ah, ayaa maalin ninkeeda waxa uu u sheegay arrintaasoo qalbigeeda farxad gelisay, in arrintoodii ay xalismatay. Muddo 2 isbuuc ah kadibna uu safri doono. Safarkaas oo ah safar shaqo, kaas oo uu ku qaadan doono mushaar sareeya. Muddo kooban kadibna uu soo laaban doono si uu u shaaciyo guurkooda. Gabadhii iyo wiilkii waxa ay qabsadeen xaflad oo ay ku dabaaldegayaan habeenkaas, waxa ayna ku qabsadeen mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada. Habeenkaasna waxa ay ugu magac dareen habeenkii macsalaameynta guurka khudbasirada ah. Habeenkaasna waxa ay wada qaateen farxad iyo jacayl fara badan. Ninkii waa uu safray. 2 bil kadibna waxaa qalin jebisay Salmo, oo waxa ay gacanta ku dhigtay shahaadadeedii jaamacadda.
waxaa ku soo baxay uur, waxaana dhaqdhaqaaq bilaabay canugii yaraa ee caloosheeda ku jiray, halka uu ninkiina u sii safray mid ka mid ah waddamada khaliijka. Waxa ay ayaamaha socdaanba, ninkii ma uusan sheegin waddanka uu ku sugan yahay iyo magaalada uu ka sii joogo. Wax isku day ahna ma uusan sameynin oo ah inuu kaxaysto gabadha ama inuu guur u shaaciyo sidii uu u ballan qaadayba. Si toos ah ayaa loo waayay ninkii, xataa ehelkiisa ma aysan ogeyn meesha uu ku sugan yahay. Maalmihii waa ay socdeen, canugiina waxa uu ku weynaaday caloosha hooyadiis. Uurkii waa uu soo weynaaday, fadeexadiina waa ay soo dhowaatay. Maxay samaysaa Salmo? Waxa ay dhexda ka istaagtay marxalad aysan marna isdhehaynin way ku qabsanaysaa. Halka xal ee u muuqday markaa waxa uu ahaa inay cunuga iska soo xaaqdo si aysan ceebteeda dibadda ugu soo bixin. Laakiin waddada ay u marayso maahan waddo dhakhtar ah, waayo waxaa la weydiin doonaa aabbaha dhalay canugan uurka ku jira iyo waalidkeeda. Sidaa darteed ayada ayaa waxay go'aansatay inay iska soo riddo keligeed, iyadoo soo iibsanaysa daawo dhireed sun ah oo carruurta lagu soo daadiyo. Markii ay isticmaashay daawo dhireedkii, waxa ay u dhimatay dhiigbax gurigooda dhexdiisa. Waxa ayna ku dhimatay waalidkeed iyo walaalaheeda hortooda, kuwaas oo aanan ka warhaynin guurkeedii qarsoodida ahaa. Waa ay ka qarisay guurkeeda iyo uurkeedaba. Dhimashadeedii kadib, ehelkeeda waxa ay ogaadeen ay dhaxal siisay ceeb weligood daba joogi doonta, xataa haddii ay ogaadeen in guurkeedii uu ahaa guur qarsoodi ah. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ninka ganacsan jiray barfuumada iyo catarada ayaa waxa uu guursaday gabadh uu weligii ku tamani jiray in uu guursado. Akhlaaqdeeda iyo nasabkeeda wanaagsan aawadeed, xiriirkooda iyo wada noolaanshiyahooda waxa uu dhaafay 5 sano. Muddada 5 sano ah kadib, haweeneydii ayaa waxa ay ka codsatay ninkeeda in uu baraha bulshada uga furo page ay kula xiriirto bulshada. Waxayna u dhiibtay telefoonkeedii. Ninkeedii waa uu ka aqbalay codsiga, waxauna u furay page oo uu ku qoran yahay magac aysan iyada lahayn. Asigana meeshaas ayuu kala soo xiriiri jiray. Laga bilaabo maalintaas, xaaskii waxa ay bilowday in ay ka caajisto salaadeeda iyo adkaarteeda. Waxa ay inta ugu badan waqtigeeda la qaadan jirtay dadka ay ku leedahay Facebook iyo baraha bulshada inteeda kale. Maalin ayaa waxa ay ka tagtay mobilkeeda oo furan, iyada oo Facebook online ka ah. Ninkeedii ayaa waxa uu aad ula yaabay markii uu arkay wada hadallo dhex maray iyada iyo ninkii hore u soo doontay. Waxa ayna ka wada hadlayeen jaceylkoodii xilligii jaamacadda. Waxa ayna u sheegtay in ay jecleed in ay isguursadaan, laakiin calafku uu u geeyay ninkan hadda ay wada joogaan, kaasi uu u geeyay amarka hooyadeed iyo aabaheed kadib kala harka labadooda. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. sidoo kale waxa ay ugu dacwootay in ninkeedii waqtiga inta ugu badan uu ka maqan yahay guriga oo uu ku soo qaato dibadda, uusan siinin waqti iyada ku filan. Ninkii markii uu ogaaday in xaaskiisii ay la sheekaysato ninkii hore u soo doontay xagga Facebook-ga, waxa uu ku dhahay xaaskiisii, Alle waxa uu ku asturay muddo dheer. Waxaa loo baahnaa in muddadaas dheer aad ku soo afjarto xiriiradan qaldan ee aad waddo. Haddii aad salaadaada xifdi lahayd, waxaad ka xishoon lahayd Ilaahay oo aad maalintii hor istaagto 5 jeer. Kumaad sii indha adkaateen xumaanta aad samaynayso. Alle waa kii ku asturay marar badan. Ninkii waxa uu ka soo qaaday wada hadalka ay la hadashay ninkii hore u soo doontay, khiyaano ay khiyaantay asaga. khiyaanaduna aysan banaaneen sharci ahaan. Wada hadalka Facebook-gana uu yahay khiyaano. Waxa ayna ahayd in ay ka cabsato Alle, Allahaas oo maqla, arka, ogna naf walba waxa ay kasbato. Xal kale ma uusan haynin oo aan ka ahayn in uu furo mooye. Inkasta oo ay u haysay canug yar oo ka dhaxeeyay. Imise xiriir ayaa ku go'ay, meeqa qoys ayaase ku burburay khiyaanada lagu sameeyo internetka. Internetka waxa uu noqday maanta sababta ugu weyn ee lagu kala tago adduunka oo idil. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Sally oo ah gabar dhigata jaamacad, marna isma aysan lahayn, waxaad in badan ku noqon doontaa maxkamadaha u kala qaada qoysaska. Waxa uu xiriir jecel dhex maray iyada iyo wiil la dhiganaya mid ka mid ah jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay. Xiriirkoodii waxa uu noqday mid sii qoto dheeraaday ilaa heer ay ka gaartay in ay la safarto iyada oo keli ah magaalooyin fogfog. Waxa ayna u sheegtay qoyskeeda in ay u socoto safar ku saabsan xagga jaamacadda. Inkasta oo walaalkeed ka weyn uu ka soo horjeestay, waxa uuna u sheegay in aysan u banaaneen in ay safar gasho iyada oo aysan la soconin qof muxrim u ah. Laakiin ogolaanshiyaha labadeeda waalid ayaa waxa ay u suuragelisay in ay safarto. Safarkaas waxa ay guur qarsoodi ah la gashay saaxiibkeed maqashii jiray hadallo dabacsan. Hadalladaas oo ku sababay in ay ku qaldanto xaqa nafteeda iyo xaqii ay ku lahaayeen qoyskeeda. Waxa ay labadoodaba saxiixeen warqaddii guurka beenta ahayd. Wixii intaa ka dambeeyana asiga ayay isku dhiibtay. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Kadib waxa ay u noqotay ciyaar gacantiisa ku jirta. Maalmo kadib gurkoodii qarsoodida ahaa oo aysan ogeyn qoyskeeda ayaa waxa uu imaaday walaalkeed ka weyn, asiga oo dhoola cadeynaya oo ay farxadi wajigiisa ka muuqato. Waxa uuna u sheegay in adeerkeed oo ah saaxiibkiisa shaqada uu ku soo hadal qaaday iyada inuu soo doonanayo. Waxa uuna u sheegay inuu aad ugu farxay soo doonashada wiilkaas, maadaama uu yahay qof dabeecad wanaagsan oona ku fiican xagga diinta. Waxa uuna walaalkeed ka rajeeyay in ay ogolaato guurkan oo aysan marna dayacin fursaddan. Sally waa ay ka cudur daaratay arrintaas. Waxa ayna u sheegtay walaalkeed in aysan diyaar u ahayn guur ilaa ay ka soo dhammaysato waxbarashadeeda jaamacadda. Walaalkeed waa uu ka ogolaaday,
mana uusan u muujinin caradiisa iyo inuu ka xun yahay go'aankeeda, maadaama ay bilo yar uun ka harsan yihiin safarkeeda waxbarashada. Markii ay dhammaysatay sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashadeeda, Sally waxa ay ka codsatay saaxiibkeed oo ah wiilkii ay sida qarsoodida ah u guursatay in uu si rasmi ah u soo doonto, si uu uga fududeeyo culayska ka haysta xagga qoyskeeda. Laakiin saaxiibkeed waa uu diiday, waxaana u sheegay in uu u safri doono Yurub, kadib waa uu furay. Isla maalintaas, Sally waxa ay isku dayday in ay isdisho, waxa ayna cuntay dhalo ay ku jiraan kaniiniyaal sun ah. Laakiin markii isbitaalka la geeyay kadib, waa ay ka badbaaday. Markii ay guriga ku soo noqotay kadib, Sally ma aysan haysanin xal kale oo aan ka ahayn inay u sheegto qoyskeeda mar qura guurkeeda iyo furiinkeedaba, iyo in ay aad uga shallaynayso in ay ku qaldantay xaqooda. Markii uu adeerkeed maqlay arrintaas, waxa uu u sheegay saaxiibkiis in uu walaashiis u istiqaaraysan doono, haddii uu Alle qalbigiisa u furana uu soo doonan doono waqtiga ugu dhow. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. haweeney wanaagsan oo isku darsatay dabeecad wanaagsan iyo diin ayaa waxa ay shaqo ka heshay xafiis dowladeed isla waqtigii ay jaamacadda dhamaysay. Kadib waa ay guursatay, waxa ayna dhashay 2 carruur. Waxa ay awooday in ay isku keento gurigeeda iyo shaqadeeda. Waxa ayna go'aansatay in ay raadiso darajadan hadda ay haysato mid ka sareysa. Waxa ay shaqadeeda ku joogtay asturnaan iyo dabeecad wanaagsan. Shaqaalaha iyo maamulkaba waxa ay markhaati ka ahaayeen wanaageeda. Waxa ay shaqadeeda joogtay muddo 10 sano ah, waxayna ka heshay khibrad aad u fara badan. Waxa ayna ku guuleysatay darajada 2 ee masterka, iyada oo qaadashada shahaadada masterka ay ka harsan tahay muddo bil ah oo aysan u sheegin qof ka mid ah dadka ay la shaqeyso. Ayaa mid ka mid ah maamulka sare waxa uu sarbeeb ahaan ugu sheegay in ay iyadu u qalanto muddadan 10 sano ah inay maamulka noqoto meeshan. Asiga ayaana iska indhatiray, waxa uuna soo magacaabay wiil ayada la shaqeeyo, kaas oo aan u qalmin booska loo magacaabayo, kaas oo aan khibrad ahaan ku filnayn meeshaas. Laakiin waxa uu ku helay booskan ammaan iyo sheegid uu u sameeyay maamulaha. Iyadana waa gabar toosan, waxa ayna nacab tahay dhaqamadan. Ayada oo murugsan ayaa waxay u soo gashay maamulaha, waxayna u sheegtay in uu dulmiyay, uuna xaqiray, uuna dilay riyadii ay u soo shaqaynaysay oo ay istaahishay. Waxa ayna xasuusisay xadiiska nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ahaa iska ilaaliya habaarka qofka la dulmiyay, xataa haddii uu gaal yahay, maxaa yeelay wax xijaaba uma dhexeeyo baryadiisa inuu Alle ka aqbalo. Maamulihii waa uu ku qoslay asagoo ku jeesjeesayo, waxa uuna u sheegay inuu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo qofkii uu rabo. Waxa uuna u sheegay in ay istiqaalada ay keento, shaqadana ay iskaga tagto haddii ay dareemayso in la dulmiyay sida ay sheegayso. Haweeneydii waxa ay imaatay gurigeeda, waa ayna iska ilowday arrintii oo dhan. Waxa ayna cunto u karisay ninkeedii carruurteeda, waa ayna u dhoola cadeysay
sidii ay caadadeeda ahaydba. Markii ay salaada tukanaysay ayay Alle sujuudda ku barisay. Waxa ayna Alle ka barisay in uu xaqeeda ugu soo celiyo dadkii u geystay dulmiga. Hal asbuuc kadib waxa ay heshay shahaadadii masterka. Waxa ayna ka qayb gashay tartan ay soo bandhigtay wasaaradda. Waxa ayna heshay boos ka sareeya booskii hore oo ay rabtay. Inta badan shaqaalaha waxay u noqdeen kuwa ka hooseeya. Shaqaalahaasna waxaa ka mid ahaa maamulaha. Markii uu ugu imaado xafiiskeeda iyadoo u wacday, waxa uu u maleynayay in ay ka aarsan doonto. Waa ay soo dhaweysay. Waxa ayna dhahday, adigu waxaad tahay maamulo fiican intii aan ka arkay intii aan kula shaqaynayay. Laakiin sanadkii ugu dambeeyay waxaad heshay dad munaafiqiin ah oo ku qiyaama oo aad hadalkooda rumaysatay. Waxaadna dulmisay shaqaale badan. Waxaan kaa rajaynayaa inaad ka noqoto xumaantii oo aad dadkii aad dulmiso u celiso xaqooda. Waxayna mar kale xasuusisay xadiidkii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ahaa ka cabsada dulmiga, maxaa yeelay qiyaamaha waxa uu noqon doonaa dulmiye fara badan. Xadiidkaas iyo waanadaas kadib, maamulihii waxa uu isku bedelay si dhammaystiran. Waxa uuna bilaabay inuu qof walba siiyo xaqiisa iyo in uu simo bixinta abaalmarinada iyo boosaska. Waxa uuna noqday mid caadil ah. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid. nin dhalinyaro ah oo Alle ka cabsi badan. Noloshiisa waxay ahayd mid dhexdhexaad ah. Habeen walba waxa uu caado ka yeeshay inuu seexdo salaada cishaaga kadib si uu u soo tooso saacado kadib una tukado salaatuleylka si uu Alle u baryo habeenkii xilliga dambe. habeenada ka mid ah ayaa waxa uu isku dayay inuu seexdo xilliga uu seexan jiray habeen walba, laakiin waa uu awoodi waayay. Hurdadii ayaa ka imaan weysay. Guriga ayuu ka baxay. Waxa uuna qaatay gaarigiisa isaga oo aanan ogeyn meesha uu u socdo. Si kadis ah waxa uu is arkay asagoo taagan guri qadiim ah hortiisa. Guriga hortiisa waxaa fadhisay haweeney sabool ah oo xambaarsaneyd canug yar. Waxay ahayd mid ooynaysa oo dhahaysa, yaa Rabbi, rasuulkaaga suuban waxa uu ku yidhi
xadiiskiisa: haddii aad wax weydiisanaysid, Alle wax weydiiso. Haddii aad kaalmo u baahan tahay, Alle kaalmo weydiiso. Waad i aragtaa inaan qaatay qadarta. Waxaan u imaaday ninka i qaba walaalkiisa, waxa uuna iga xirtay albaabkiisa. Waxaana ogahay in marnaba adiga albaabkaaga uusan xirmin. Ninkii waxa uu ka soo degay gaarigii, waxa uuna u soo dhowaaday haweenaydii. Waxa uu weydiiyey waxa ku dhacay oo ay la ooynayso. Waxa ayna ugu jawaabtay, anigu waxaan ahay haweeney uu ka geeriyooday ninkeedii. Canugayga yarna aad ayuu iga xanuunsan yahay. Waxaana u imaaday ninkayga walaalkiis si uu iigu raaco isbitaalka, laakiin waxa uu iga soo xirtay albaabkiisa. Waa uuna i soo buriyey. Ninkii wuxuu soo qaaday haweenaydii iyo canugeedii. Waxa uuna u keenay nin ay saaxiibo yihiin oo dhakhtar ah. Waxa uuna baaray canugii. Waxa uuna u qoray dawooyin asaga oo aanan ka qaadin wax lacag ah. Ninkii waxa uu haweenaydii siiyey xoogaa lacag ah. Waxa uuna keenay gurigoodii. Markii uu keenay guriga, waxa uu arkay alaab qadiim ah oo guriga u taalo. Waxa uuna u sheegay inuu i soo iibinayo alaab cusub. Waxa uuna u sheegay in bil walba uu siin doono lacag. Haweenaydii waa ay oysay, waxayna Alle uga barisay inuu ka ilaaliyo wax kastoo dhib ah. Waxa ayna ku dhahday riyadeeda ugu weyn waxa ay ahayd in canugayga aan geeyo isbitaal. Ninkii waxa uu ku jawaabay, waxaa ceeb ka nasahan Ilaahay, kaas oo indhahayga ka fogeeyo hurdada. Allahaasoo i waafajiyey in xilli dambe aan soo qaato gaarigayga, aana soo aado meel aanan garanaynin si aan adiga kula kulmo. Ninkii waxa uu ku soo noqday gurigiisa. Waxa uuna habeenkii oo dhan baryay Ilaahay. Waa uuna seexday ayadoo salaadii subax ay ka dhiman tahay waqti yar. Subaxii markii uu soo kacay, waxa uu soo aaday shaqadiisa. Waxa uuna arkay gaari dardaray wiil dhalinyaro ah. Gaarigiina wuu ka baxsaday meesha inta aysan cidna arkin. Ninkii waxa uu ka soo degay gaarigiisa. Waxa uuna qaaday wiilkii dhaawaca ahaa. Waxa uuna geeyey isbitaalka. Markii uu isbitaalka soo gaaray, mid ka mid ah kalkaalisooyinka ayaa waxa ay ku dhahday, ninkii dhaawaca ahaa ee aad keentay waa uu geeriyooday. Ninkii dhalinyarta ahaa waxaa la geeyey mid ka mid ah saldhigyada booliska ee u dhowaa isbitaalka. Waxaana lagu eedeeyey inuu dilay wiilka geeriyooday. Ninkii waa uu yaabay. Kadib waxa uu xasuustay xadiiskii Nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ee ahaa: baryada qofka dhibanaha ah ee ku ducaysta ducadani: laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. Ilaahayow, Alla kale ma jiro oon adiga ahayn. Adiga xumaan ka nasahan. Anigu waxaan ka mid ahay dadka naftooda la dulmiyey. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ma jiro qof muslim ah oo la dulmiyey oo ku duceysto ducadan, xataa haddii uu ku jiro caloosha
kalluunka kalluumada ugu weyn, ilaa Ilaahay waa uu ka ajiibaa ducadaas. Waxa uu ku ducaystay ducadii si Ilaahay uu uga kor qaado murugadan si kadis ah. Ninkii dambi baaraha ahaa ee qaabilsanaa kiiskan ayaa waxa uu u yeeray ninkan dhalinyarta ah qolka dambi baarista. Waa uuna raaligeliyey, waa uuna sii daayey. Waxa uuna u sheegay in dhakhaatiirta isbitaalka ay soo waceen, ayna ku wargeliyeen in ninkii uu weli nool yahay oo uusan dhimanin. Waa uu suuxsanaa, waxaana loo malaynayay inuu geeriyooday. Wiilkii dhaawaca ahaa ayaa sheegay in uu ninkani uusan dilin, laakiin naftiisa uu badbaadiyey. Inta uu nool yahayna abaal uu u hayn doono. Ninkii waa uu dhoola caddeeyey, waxa uuna in badan u mahadceliyey Ilaahay. Waxa uuna soo xasuustay haweenaydii ugu duceysay in Ilaahay uu ka ilaaliyo wax kastoo dhib ah. Waxa uuna hubsaday in haddii mar uu abaal u galo qof, marna uusan ka dayacmaynin. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. wiil dhalinyaro ah oo wanaagsanaa ayaa waxa uu caado ka yeeshay in bil walba aakhirkeeda uu gaarigiisa qaybta dambe ka soo buuxiyo kartoomo ay ka buuxaan macmacaanka jukuleedka ama shukulaatada mideeda ugu macaan uguna qaalisan. Waxa uuna gaarigiisa u soo kaxaysan jiray guryo ay ku nool yihiin dad fuqaro ah oo masaafo ahaan u jirta gurigiisa saacad barkeed. Waxa ay daris ahaayeen nin taajir ah oo haddana bakhiil ah. Ninkan bakhiilka ah bil walba waxa uu fiiriyaa waxa uu samaynayo ninkan. Maalin maalmaha ka mid ah, sidii caadada ahayd, asaga oo gaarigiisa ka soo buuxsaday macmacaanka ayaa waxa uu imaaday ninkii bakhiilka ahaa asaga oo dhoola caddeynaya. Waxa uuna ku yidhi, xaggee ayaad u wadaa shukulaatooyinkan aadka u macaan? Waxaan arkaa qaab ahaan inay yihiin kuwa ugu qaalisan shukulaatooyinka uguna macaan. Ninkii waa uu dhoola caddeeyey, waxa uuna u soo bandhigay ninkii deriskiisa ahaa inuu raaco si uu u soo arko meesha uu aadayo iyo sababta. Ninkii waa uu ku raacay, waxa uuna ka tegay gaarigiisa, waxa uuna raacay gaarigii ninkii wanaagsanaa. Intii ay ku jireen socodkoodii, ninkii wanaagsanaa waxa uu bilaabay akhrinta Qur'aanka Kariimka cod aad u macaan. Ma uuna joojinin akhrinta Qur'aanka ilaa uu ka gaaro meeshii ay u socdeen. Ninkii wanaagsanaa waxa uu ka codsaday ninkii deriskiisa ahaa in uu la qaado kartoomada ay ku jiraan shukulaatooyinka. Kadib waxa uu garaacay mid ka mid ah albaabadii dadkii fuqarada ahaa, waxaana ka furay wiil saqiir ah. Markii uu arkay, waxa uu la qeyliyey farxad. Waxa uuna ku dhahay hooyadiis iyo walaalihiis, waxaa imaaday adeerkii wanaagsanaa asagoo inoo sida shukulaato. Kadib waxa uu garaacay albaab kale. Waxaa ka furtay haweeney waayeel ah. Markii ay aragtay
adeeggii uu u waday waa ay ka qaadatay, waa ayna u duceysay, waxayna Alle uga barisay inuu siiyo caafimaad iyo inuu Alle ku toosiyo waddo wanaagsan iyo inuu Alle siiyo timaarta jannada sida uu iyaga u siiyey wax wanaagsan. Ninkii wanaagsanaa iyo ninkii ay deriska ahaayeen waxa ay sii wateen hawshoodii qaybinta ahayd, waxayna si siman u gaarsiiyeen dhammaan xaafadihii dadka fuqarada ahaa. Markii ay qaybintii dhammeeyeen, ninkii wanaagsanaa waxa uu galay gaarigiisa, asiga iyo ninkii ay deriska ahaayeen. Ninkii baqiilka ahaa waxa uu weydiiyey ninkii wanaagsanaa isaga oo yaaban sababta uu u doortay in xaafadan keliya uu si khaas ah u abbaaro iyadoo ay jiraan xaafado kale oo badan. Sidoo kale waxa uu weydiiyey sababta uu u doortay inuu u qaybiyo shukulaato isagoo awooda inuu u qaybiyo lacag ama wax kale oo ka wanaagsan shukulaatada. Ninkii waa uu dhoola caddeeyey, waxa uuna ku dhahay ninkii deriskiisa ahaa, xaafadani waa xaafad aan ku noolaa markii aan yaraa anigoo agoon ah haddana faqiir ah. Dadka xaafadan degganna ayagoo fuqaro ahaa ayay haddana ii naxariisan jireen, waxayna i sii jireen shukulaato aan jeclaa, taas oo weli dhadhankeedu aan ka dareemayo afkayga. Markii aan weynaaday oo Alle uu i siiyey maal, waxaan jeclaystay in aan ku celiyo qayb ka mid ah abaalkii ay ii galeen. Haddii aan kaaga jawaabo su'aashaada labaad, fur mid ka mid ah kartoomada. Ninkii waxa uu furay kartoonkii, waxa uuna ku arkay xogaa lacag ah. Arrinkani ninkii deriska ahaa waxa uu ku sii siyaadiyey yaabkii. Waxa uuna weydiiyey, maxaad u siin weysay lacagta oo keliya ama shukulaato ka raqiisasan middan? Ninkii wanaagsanaa waxa uu ku jawaabay isagoo qoslaya, waxaan lacagta u geliyaa gudaha kartoonka ay ku jirto shukulaatada anigoo ilaalinaya dareenkooda. Haddii aan lacagta ku siiyo gacanta, waxa ay dareemayaan xishood. Haddii aan ka hadlo xagga shukulaatadan aniga aad ayaan u jeclahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxa uu yidhi, liibaan ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ninkii deriska ahaa kama uusan suulin inuu su'aal weydiiyo ninkii wanaagsanaa. Ninkanna mar walba waxa uu ugu jawaabayay su'aal walba. Sikadiis ah waxaa ka soo horbaxay gaari weyn. Gaarigaas waxa uu ka soo baxay sayidkiisa, waxa uuna si qaldan u soo galay sayidkooda. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa ninkii wanaagsanaa waxa uu ka leexiyey gaarigii. Ninkii wanaagsanaa waa uu dhoola caddeeyey, waxa uuna ninkii deriskiisa ahaa u sheegay in uu Alle ku badbaadiyey ducada dadkii saboolka ahaa ee qalbiyada wanaagsanaa. Ninkii deriska ahaa waa uu ilmeeyey, waxa uuna ku dhahay, sidoo kale waxaana badbaadiyey naxariista aad u samaysay dadka masaakiinta ah. Laga bilaabo maanta, bil walba qayb ka mid ah maalkayga waxaan wax ka sii doonaa dadka u baahan. Waxaa laga yaabaa in Alle uu aniga iyo qoyskayga inaga badbaadiyo dhib inagu soo socday, ama uu naga kor yeelo xanuun ama muruga ina haysata. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع
واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ninka ganacsan jiray barfuumada iyo catarada ayaa waxa uu guursaday gabadh uu weligii ku tamani jiray in uu guursado akhlaaqdeeda iyo nasabkeeda wanaagsan aawadeed. xiriirkooda iyo wada noolaanshiyahooda waxa uu dhaafay 5 sano. muddada 5 sano ah kadib, haweeneydii ayaa waxa ay ka codsatay ninkeeda in uu baraha bulshada uga furo page ay kula xiriirto bulshada, waxayna u dhiibtay telefoonkeedii. ninkeedii waa uu ka aqbalay codsiga, waxauna u furay page oo uu ku qoran yahay magac aysan iyada lahayn, asigana meeshaas ayuu kala soo xiriiri jiray. laga bilaabo maalintaas, xaaskii waxa ay bilowday in ay ka caajisto salaadeeda iyo adkaarteeda. waxa ay inta ugu badan waqtigeeda la qaadan jirtay dadka ay ku leedahay Facebook iyo baraha bulshada inteeda kale. maalin ayaa waxa ay ka tagtay mobilkeeda oo furan iyada oo Facebook online ka ah. ninkeedii ayaa waxa uu aad ula yaabay markii uu arkay wada hadallo dhex maray iyada iyo ninkii hore u soo doontay. waxa ayna ka wada hadlayeen jaceylkoodii xilligii jaamacadda. waxa ayna u sheegtay in ay jecleed inay isguursadaan, laakiin calafku uu u geeyey ninkan hadda ay wada joogaan, kaasi uu u geeyey amarka hooyadeed iyo aabaheed kadib kala harka labadooda. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. sidoo kale waxa ay ugu dacwootay in ninkeedii waqtiga inta ugu badan uu ka maqan yahay guriga oo uu ku soo qaato dibadda, uusan siinin waqti iyada ku filan. ninkii markii uu ogaaday in xaaskiisii ay la sheekaysato ninkii hore u soo doontay xagga Facebook, waxa uu ku dhahay xaaskiisii, alla waxa uu ku asturay muddo dheer. waxaa loo baahnaa in muddadaas dheer aad ku soo afjarto xiriiradan qaldan ee aad waddo. haddii aad salaadaada xifdi lahayd, waxaad ka xishoon lahayd Ilaahay oo aad maalintii hor istaagto 5 jeer. kumaad sii indha adkaateen xumaanta aad samaynayso, alla waa kii ku asturay marar badan. ninkii waxa uu ka soo qaaday wada hadalka ay la hadashay ninkii hore u soo doontay khiyaano ay khiyaantay asaga, khiyaanaduna aysan bannaaneen sharci ahaan. wada hadalka Facebookna uu yahay khiyaano. waxa ayna ahayd in ay ka cabsato allahaas oo maqla, arka, ogna naf walba waxa ay kasbato. xal kale ma uusan haynin oo aan ka ahayn in uu furo mooye, inkasta oo ay u haysay canug yar oo ka dhaxeeyey. imise xiriir ayaa ku go'ay, meeqa qoys ayaase ku burburay khiyaanada lagu sameeyo internetka. waxa uu noqday maanta sababta ugu weyn ee lagu kala tago adduunka oo idil. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. wiil dhalinyaro ah oo wanaagsanaa ayaa waxa uu caado ka yeeshay in bil walba aakhirkeeda uu gaarigiisa qaybta dambe ka soo buuxiyo kartoomo ay ka buuxaan macmacaanka, jukuleedka
ama shukulaatada mideeda ugu macaan uguna qaalisan. Waxa uuna gaarigiisa u soo kaxaysan jiray guryo ay ku nool yihiin dad fuqaro ah oo masaafo ahaan u jirta gurigiisa saacad barkeed. Waxa ay daris ahaayeen nin taajir ah oo haddana bakhiil ah. Ninkan bakhiilka ah bil walba waxa uu fiiriyaa waxa uu sameynayo ninkan. Maalin maalmaha ka mid ah, sidii caadada ahayd, asaga oo gaarigiisa ka soo buuxsaday macmacaanka ayaa waxa uu imaaday ninkii bakhiilka ahaa asaga oo dhoola caddeynaya. Waxa uuna ku yidhi, xaggee ayaad u wadaa shukulaatooyinkan aadka u macaan? Waxaan arkaa qaab ahaan inay yihiin kuwa ugu qaalisan shukulaatooyinka uguna macaan. Ninkii waa uu dhoola caddeeyey. Waxa uuna u soo bandhigay ninkii deriskiisa ahaa in uu raaco si uu u soo arko meesha uu aadayo iyo sababta. Ninkii waa uu ku raacay. Waxa uuna ka tegay gaarigiisa. Waxa uuna raacay gaarigii ninkii wanaagsanaa. Intii ay ku jireen socodkoodii, ninkii wanaagsanaa waxa uu bilaabay akhrinta Qur'aanka Kariimka cod aad u macaan. Ma uuna joojinin akhrinta Qur'aanka ilaa uu ka gaaro meeshii ay u socdeen. Ninkii wanaagsanaa waxa uu ka codsaday ninkii deriskiisa ahaa in uu la qaado kartoomada ay ku jiraan shukulaatooyinka. Kadib waxa uu garaacay mid ka mid ah albaabadii dadkii fuqarada ahaa. Waxaana ka furay wiil saqiir ah. Markii uu arkay, waxa uu la qayliyey farxad. Waxa uuna ku dhahay hooyadiis iyo walaalihiis, waxaa imaaday adeerkii wanaagsanaa asagoo inoo sida shukulaato. Kadib waxa uu garaacay albaab kale. Waxaa ka furtay haweeney waayeel ah. Markii ay aragtay adeegii uu u waday, waa ay ka qaadatay. Waa ayna u duceysay. Waxayna Alle uga barisay inuu siiyo caafimaad iyo inuu Alle ku toosiyo waddo wanaagsan iyo inuu Alle siiyo timaarta jannada sida uu iyaga u siiyey wax wanaagsan. Ninkii wanaagsanaa iyo ninkii ay deriska ahaayeen waxa ay sii wateen hawshoodii qaybinta ahayd. Waxayna si siman u gaarsiiyeen dhammaan xaafadihii dadka fuqarada ahaa. Markii ay qaybintii dhammeeyeen, ninkii wanaagsanaa waxa uu galay gaarigiisa asiga iyo ninkii ay deriska ahaayeen. Ninkii bakhiilka ahaa waxa uu weydiiyey ninkii wanaagsanaa isaga oo yaaban sababta uu doortay in xaafadan keliya uu si khaas ah u abbaaro iyadoo ay jiraan xaafado kale oo badan. Sidoo kale waxa uu weydiiyey sababta uu u doortay inuu u qaybiyo shukulaato asagoo awooda inuu u qaybiyo lacag ama wax kale oo ka wanaagsan shukulaatada. Ninkii waa uu dhoola caddeeyey. Waxa uuna ku dhahay ninkii deriskiisa ahaa, xaafadani waa xaafad aan ku noolaa markii aan yaraa anigoo agoon ah haddana faqiir ah. Dadka xaafadan deganna ayagoo fuqaro ahaa ayay haddana ii naxariisan jireen. Waxayna i sii jireen shukulaato aan jeclaa, taas oo weli dhadhankeedu aan ka dareemayo afkayga. Markii aan weynaaday oo Alle uu i siiyey maal, waxaan jeclaystay in aan ku celiyo qayb ka mid ah abaalkii ay ii galeen. Haddii aan kaaga jawaabo su'aashaada labaad, fur mid ka mid ah kartoomada. Ninkii waxa uu furay kartoonkii. Waxa uuna ku arkay xogaa lacag ah. Arrinkani ninkii deriska ahaa waxa uu ku sii siyaadiyey yaabkii. Waxa uuna weydiiyey, maxaad u siin weysay lacagta oo keliya ama shukulaato ka raqiisasan middan? Ninkii wanaagsanaa waxa uu ku jawaabay asagoo qoslaya, waxaan lacagta u geliyaa gudaha kartoonka ay ku jirto shukulaatada anigoo ilaalinaya dareenkooda. Haddii aan lacagta ku siiyo gacanta, waxa ay dareemayaan xishood. Haddii aan ka hadlo xagga shukulaatadan aniga aad ayaan u jeclahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana
waxa uu yidhi, liibaan ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ninkii deriska ahaa kama uusan suulin inuu su'aal weydiiyo ninkii wanaagsanaa. Ninkanna mar walba waxa uu ugu jawaabayay su'aal walba. Sikadiis waxaa ka soo horbaxay gaari weyn. Gaarigaas waxa uu ka soo baxay sayidkiisa, waxa uuna si qaldan u soo galay sayidkooda. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa ninkii wanaagsanaa waxa uu ka leexiyay gaarigii. Ninkii wanaagsanaa waa uu dhoola caddeeyay, waxa uuna ninkii deriskiisa ahaa u sheegay in uu Alle ku badbaadiyay ducada dadkii saboolka ahaa ee qalbiyada wanaagsanaa. Ninkii deriska ahaa waa uu ilmeeyay, waxa uuna ku dhahay, sidoo kale waxaana badbaadiyay naxariista aad u samaysay dadka masaakiinta ah. Laga bilaabo maanta, bil walba qayb ka mid ah maalkayga waxaan wax ka sii doonaa dadka u baahan. Waxaa laga yaabaa in Alle uu aniga iyo qoyskayga inaga badbaadiyo dhib inagu soo socday, ama uu naga kor yeelo xanuun ama muruga ina haysata. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.